maanta haddii ilaahay idmo waxaan u baxayaa xajkii dalka iyo dadka u sii ducaynayaa ilaahay waxaan ka baryo nabad qad igu soo celiyo dalkayga waxaan u sheegayaa halkan warar shacbiga Somaliland uu ku farxi doono oo ah in la soo afjaro murankii ka taagnaa golaha wakiilada Somaliland saa ka warqabtaan shacbiguna indhahooda ku arkeen waxaa la qabtay doorashadii jagada guddoomiyaha golaha wakiilada 7 August 2017 waa la codeeyey codkii siduu dhacayna iyo natiijadii lagu dhawaaqayna kala jaad bay noqdeen natiijadii lagu dhawaaqay waxaa loogu dhawaaqay guddoomiye baashe maxamed faarax codkana 39 waxaa helay cabdiraxmaan talyanleh oo isagu tartamayey Somaliland dhaqan bay leedahay xisbi ahaan iyo mudanayaal ahaanba waxaan u ergoonay golaha guurtida sidii dhaqanku ahaan jiray garawshiye lagama helin markii dibna waxaan leenahay qawaaniin oo maxkamadda loo gudbiyey maxkamadiina golaha ku soo celisay marka iyadoo arrintaasi taagan waxa aanu garanay in aanu shacbiga iyo dalka iyo dadkaba loo turo warwarka faraha badan ee hayana laga kor qaado waxaanu garanay in institutionskii kale ee shar qaranku arrinta markuu khilaaf yimaado xalili jiray markay ku guul daraysteen arrintaas inaanu anagu isku noqonno oo xildhibaan ahaan iyo xisbi ahaanba annagoo qaranka u turayna aanu aqbalno in guddoomiye uu yahay baashe maxamed faarax inta kale waxaan u dayn doonaa cabdiraxmaan talyanleh iyo baashe maxamed faarax haddii ilaahay ka dhigo ajmaciin waa maalin jimco ah halkan waxaanu kusii sagootineynaa guddoomiyihii xisbiga wadani oo ah murashaxa madaxweynaha oo xajka u anbabaxaya kadib hadal dheer geli maayo hoggaanka xisbiga oo uu ka mid yahay guddoomiyaha ku-meel gaadhka xisbiga hoggaamiyaha xisbiga oo ah maxaa xirsi dhammaan markaanu arrintaa isla eegnay waxa lagama maarmaan noqotay xal ummadda Somalilandna u cuntama oo aan ka nixina ka farxiya golahana badbaadiya ummadana taariikh ay u noqoto in tanaasul bay Somaliland halka ku soo gaadhay la isu tanaasulo waxa weeye wada hadal dheer kadib socdaalka dheer ee doorashada lagu galay ee uu iminka guddoomiyuhu balbalaadiyay yeelkadeeda annagaan eegayn xag sharci annagaan eegayn xag cod annagoo mar walbaba qiimeynayna ummadda Somaliland annagoo qiimeynayna institutionka golaha wakiilada waxaan halkan ka cadaynayaa oo aanu odayaasha isla garanay inaan ummadda Somaliland u sheego inaan ka tanaasulo kursigii aan anigu doorashada ku helay 39 cod ay igu codeeyeen inaan uga tanaasulo baashe maxamed faarax oo iminka fadhiya golihii isqabqabsi dambena aanu dhicin ummadda Somaliland sida aanu ugu bishaarayno wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi sida aad maqlayseen waxaan joognaa gurigii guddoomiyahuna xajkii buu u socdaa waanu imi odayaasha waa u imi golihiina cid kastaaba ha heshee waxa weeye golihii khilaaf baa ku jira dalkana khilaaf baa galay cabdiraxmaan waxaanu adiga xajkii aadaye xajku ha laga aqbale adigoo aan xalilin khilaafka xajkii ha aadin nasiib wanaag abtay cabdiraxmaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa tanaasulka uu sameeyey waxa weeye dalkana waxay u tahay badbaado
golahana waxay u tahay badbaado aniguna haddaan guddoomiye noqoday haddii kaleba golaha waxaanu ahay dhex golo khilaaf jirana dee golo noqon maayo waxaan filayaa in golahu khilaafkiisii uu dhammaado xildhibaanada golaha ee 82-kana isu ka mid yihiin dhexna aan noqono sidii ilaahay ugu ogyahay aan dhexdhexaadnimo ku wado wixii ii codeeyey iyo wixii aan ii codayna ay maantada la joogo jamcad tahay ay isu ka mid yihiin oo yihiin golihii sidii wanaagiisa iyo qaranka loogu shaqayn lahaa hawsheedana aan u wadan lahayn waxa weeye muddo badan baa dadka khilaaf ku jiray Soomaaliland waxay ku caanamaashay waxa weeye wax kasta oo dhaca waxa la isu tanaasul ayaynu ku soo meemanay iyo wada tashi waad aragtaan dee afar hareeraha taagan yahay waa wadani laakiin waa ragaan wada saaxiibna odayaal oo muddo badan soo wada shaqaynayay wax dhibaato ayna ma jiraan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu khilaafkana ina ka yareeyo doorashada soo socota nabadgelyada aynu ku gaadhno doorasho xor oo xalaal ah inoo dhacdo sida la isugu tanaasulayaana ninkii hore iyo ninka helinba markii uu natiijada la helo in lagu wada qanco Cabdiraxmaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaanadii kale iga codeeyay Cabdiraxmaan u codeeyena waxaan leeyahay waa isu qiimid baatiin golahuna isku mid waxaan ku wadanaa golaha wada jira oo walaalaa oo 12 sano ayaanu iskara fadhinay marka rag wada soodaaqaan isku soo koray baan waxa secondary-ga lagu dhameeyay marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa weeye go'aanka geesinimada ay qaateen wadani wax kasta ay jiraan ay laqeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasalaamada shacabka Soomaaliland waxaan gaarsiinayaa waxa weeye khilaafka soo dhaca waa waxay leeyeen ku yiqiin ay weligeed ay ku soo caanamaalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdulillahi rabbil caalamiin waayeel baa ka taliyay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Talyanle oo ku dhiiraday inuu walaalkii Baasha Maxamed Faarax u hibeeyo oo aqbalay wada tashigayagii baashana waxaan isna ku hambaleynayaa inaanu naga maaginayo isagu noo yimi oo codsigaa noo keenay yidhi waral maadeerayaal golihiina sidan wuu ku dhimanayaa dalkana dan uma ahee dee waxaan magan idinka ahay in wixii aad tabanayseen balliqdaanoo la ii hibeeyo isagana waan ku mahadinayaa inuu noo yimi uu ku soo dhiiraday Cabdiraxmaanna waxaan leeyahay waa mid taariikhda kuu gelaya waa mid dalkan isu soo dhaweynaya waanad mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله odayaasha hadalkii dhameeyo hadal kale oo hadhay ma jiro waan runtii u mahadcelinayaa ilaahayna waxaan ku mahadinayaa inuu ina waafajiyay arrin khayr leh oo ah inaynu golaha iyo qarankaba wixii khilaaf iyo qalalaasa ka bogsiino oo uu midoobo oo walaaloobo oo halkiisii ka wato hawshiisa waxaan runtii mahad ballaaran soo jeedinayaa baasho ku dhiiraday gudoomiye baasho ku dhiiraday inuu u yimaado xisbiga wadani gudoomiyaha u yimaado yiraahdo war arrintii ila xalila sidoo dhaqanku ahaan jiray inuu Talyanlena tanaasulo oo odaytinimo muujiyo oo geesinimo muujiyo Cabdiraxmaanna runtii uu ka dhexdhexaadiyo oo isu keenay gudoomiyuhu dhananaan ku dhex joognay runtii aad baan ugu mahadinayaa waa camal baan insha Allah taala ilaahay ka rajaynayaa barakaysan maalin jimca oo 10kii casho ee dilxijje ugu horeeyay oo maalimii khayrka badnaaya ilaahay waxaan ka baryaynaa golaha iyo qarankaba inuu khayrka inoo waafajiyo inoo aqbalo amaatantii salaam